injiilka sida uu Markos u qoray cutubka 12 markaasuu wuxuu bilaabay inuu masaalo kula hadlo iyaga. nin baa wuxuu beertay beer canaba oo ood u ku hareeray, dabadeedna god macsareed buu ka dhex qoday oo munaarad ka dhisay oo niman beerey ah u kiraystay oo dal kala tegey. goortii xilligii yimid ayuu addoon u soo diray beeraydii inuu beeraydii midhihii beerta ka soo qaado. markaasay qabteen oo garaaceen oo waxla'aan ku direen. haddana addoon kale ayuu u soo diray, kaasay dakhreen oo ceereeyeen. haddana mid kale ayuu u soo diray, wayna dileen. oo qaar kale oo badan ayuu diray, qaar waa la garaacay, qaarna waa la dilay. weliba wuxuu lahaa wiil keliya oo uu jeclaa. kolkii ugu dambaysay ayuu u soo diray isagii oo wuxuu yidhi, wiilkayga way maamuusi doonaan. laakiin beeraydii waxay isku yidhaahdeen, kanu waa kii dhaxalka lahaa, kaalaya aan dilne, dhaxalkiina innagaa lahaan doona. way qabteen wayna dileen oo beertii canabka ahayd dabaddeeda ku tuureen. haddaba sayidka beerta canabka ah muxuu samayn doonaa? wuu iman doonaa oo beerayda dili doonaa. dad kalena ayuu beerta canabka ah u dhiibi doonaa. miyaydnaan weligiin qorniinka ka akhriin? dhagixii kuwa wax dhisaa ay diideen, kaasi wuxuu noqday madaxa rukunka. tanu xagga rabbiga bay ka timi, oo waa ku yaab indhahayaga. markaasay waxay dooneen inay qabtaan, laakiinse dadkay ka baqeen, waayo way garteen inuu masaalka iyaga kaga hadlay. markaasay iska daayeen oo ka tageen. waxay u soo direen farrisiinta iyo herodisiinta qaarkood si ay hadalkiisa ugu qabtaan. goortay yimaadeen waxay ku yidhaahdeen, macallimow, waannu ognahay inaad run tahay oo aanad ninna u eexan, waayo dadka wejigooda ma eegtid, jidhka ilaahse aad run ku bartid. ma xalaal baa in cashuur kaysar la siiyo ama inaan la siin? ma siinaa mise ma siino? isaguse laba wajiilanimadooda ayuu gartay oo wuxuu ku yidhi, maxaad ii jirrabaysaan? diinaar ii keena aan arkoe. wayna u keeneen oo wuxuu ku yidhi, yaa leh masawirkan iyo qorniinkan? waxay ku yidhaahdeen, kaysar baa le. ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, kaysar siiya wixii kaysar leeyahay, ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay. wayna ka yaabeen. markaasaa waxaa u yimid saadukiin, kuwii odhan jiray sare kicidda kuwii dhintay ma jirto. oo waxay weydiiyeen oo ku yidhaahdeen, macallimow, muuse wuxuu noo qoray, nin walaalkiis hadduu dhinto oo naag ka tago, isagoo aan ilmo lahayn, walaalkiis naagtiisa waa inuu dumaalo oo carruur walaalkiis u dhalo. waxaa jiray 7 walaalaa. kii ugu horreeyey naag buu qabay, wuuna dhintay, dhalna kama tegin. kii labaad baa dumaalay, wuuna dhintay, isaguna dhal kama tegin. oo sidaas oo kalea ku dhacday kii saddexaad. 7diiba way guursadeen, dhalna kama tegin, kulligood dabadood naagtiina waa dhimatay. wakhtiga sare kicidda kuwii dhintay, iyaga keebay naagtiisii ahaan doontaa? waayo 7duba way wada guursadeen. ciise baa u jawaabay oo ku yidhi, sidaa darteed miyaydnaan khaldamin, waayo qorniinka iyo xoogga ilaah midna garan maysaan. waayo goortay kuwii dhintay soo sare kacaan, layskuma guursado, guurna layskuma siiyo, laakiin waxay yihiin sida malaa'igaha jannada ku jira. oo xagga kuwii dhintay in la sare kiciyo, miyaydnaan kitaabkii muuse ka akhriyin, sidii ilaah geedkii ugala soo hadlay oo ku yidhi, anigu waxaan ahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub. isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay, laakiin waa ilaaha kuwa nool. idinku aad baad u khaldan tihiin. kolkaasaa culimmada midkood u yimid, markuu maqlay iyagoo wada hadlaya. oo markuu gartay inuu si wanaagsan u jawaabay, ayuu wax weydiiyey oo ku yidhi, qaynuunkee baa ka horreeya kuwa kale oo dhan?
markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi kan ugu horreeyaa waxa weeye maqal israa'iilow rabbiga ilaaheenna waa rabbiga keliya waa inaad rabbiga ilaahaaga ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan iyo xooggaaga oo dhan ku labaad waa kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada qaynuun kale oo kuwan ka weyn ma jiro waxaa culimmada mid ka maduhu ku yidhi sida runta macallimow si wanaagsan baad u hadashay markaad tidhi isagu waa mid keliya oo mid kalena ma jiro isaga maahe in laga jeclaado qalbiga oo dhan iyo caqliga oo dhan iyo nafta oo dhan iyo xoogga oo dhan iyo in deriska loo jeclaado sida nafta taasaa ka sii wanaagsan allabariyo la wada gubo iyo allabariyo kale oo dhanba markii ciise arkay inuu miyir u jawaabay wuxuu ku yidhi boqortooyada ilaah kama cadfogid markaas dabadeed ninna kuma dhicin inuu wax weydiiyo ciise baa u jawaabay oo ku yidhi intuu macbudka wax ku barayey culimmadu sidee bay u yidhaahdaan masiixu waa ina daa'uud qudhiisuna isagoo ruuxa quduuska ku hadlaya ayuu wuxuu yidhi rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo daa'uud qudhiisa ayaa ugu yeedhay sayid sidee buu wiilkiisa u yahay dadkii badnaana farxad bay ku maqleen markuu wax barayey wuxuu ku yidhi iska jira culimmada oo doonaya inay khamiisyo dhaadheer ku socdaan oo jecel salaanta suuqa iyo kursiyada hore ee sunagogyada iyo meelaha hore ee diyaafadaha waxay yihiin kuwo wada laasta guryaha carmalada oo tukashooyin dhaadheer ayay istusid u tukadaan kuwaas waxay heli doonaan xisaab aad u daran ciise wuxuu fadhiistay meel ka hor jeeda khasnadii oo wuxuu eegayey sida dadku lacagta ugu ridayo khasnadii qaar badan oo hodan ah ayaa wax badan ku riday markaasaa waxaa yimid carmal miskiina iyadu waxay ku riday 2 lacaga oo yaryar oo qiimahoodu beeso yahay markaasuu xertiisii u yeedhay oo ku yidhi runtii waxaan idinku leeyahay carmalkan miskiinta waxay ku riday wax ka badan wixii ay dhammaan ku ridayeen khasnadii waayo kulligood waxay kaga rideen waxoodii badnaa iyaduse miskiinnimadeeday kaga riday wixii ay lahayd oo dhan xataa wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan